الله أم حد كوك تحطني من بدار لي هاي صامي لقى ما تقول بلايات هاي شيء دامدي وحمد نيدك تشبساي صباح wanaagsan amiiradii subax lamida maanta waxaan leenahay jidwal 10ka subaxnimo waxa bilaamaya meerashadii ubaxa kadibna masaajkii iyo wajigaaga daryeelkiisa kadibna timaha lagu hagaajinaya ka bacdina dharkaas ku eegaysa waayo martib sharaf badan ayaa baritoona xafladaada ka soo qayb galaysa adiga ma garatay oo hadii imanayaan madartood banu labistaa amarka boqorada weeyaan inaad maanta noqoto gabadha ugu quruxda badan ama amiirada ugu quruxda badan xafladaha adduunka ka dhaca ma garatay hadaba inta boqorada aad u tagto waxaad ku tiraahdaa waxa aad wada wax soconaya maaha inaan labisto dharka ugu qurux badan xidhaana waxay farxad galinaya maaha waxa kaliyan ku farxaya markan afartan gidaar ka baxo aan ku barayay dhigeyso anu amarka hooyada baan fulinaya sidoo kalena boolo iyo raajo ayaa kula joogay xafladda sumcadda qasriguna halis bay galaysaa haddii aanad bari xafladaada imanin miyaad silsiladna qoorta ii gelisaan ad ii raacisaan weliba aniga waxaan oo kale xaflad maaha Soomiye bandhig weeyaan aniga kuleyn maalintii dhan laba shaqaale ayaa saa ku hor joogay oo indhaha dadka dhan adiga ku eegayaan ku ilaalinayaan waliba maxay ii dayn laahiin aan xorriyadeeda u noolaado sida dadka kale maxay iga dhibayaan alla ilaahayo mar labaad ban guul dareystay ka xumahay wariyahay waxaan ku iri dee bahashan ciyaaraysaa waxay u baahan tahay in laga fikiro oo saacado badan loo soo jeedo midda kale waxaan ku iri dee xalay toole iyo shalay iyo daraadiyo waad fiicnayde maxaa kugu dhacay dee wani Ibrahim maxay baa la kulmay walaal yaa maxaa tiri xalay baan kulanayaa waa asal waa la yaabay laakiin sug yaad kulantay arjow yaa leef ma la kulmin laakiin nadkaan kala hadlay anigu oo waxaad u maleynaysaa inaad jalaatay anigii dhageysana kaaga warramay dumarku waxay yihiin wani tan dumarka la mid maahaba يا محاتر كسو قلبل محاتر دمر كولا ميدها واريمي كمان كو ديغيا بان خوري امس بريمو يدو مeel kale kama shabahdo hablaha imika jooga waa inay wanaagsan akhlaaq leh aniga ay la mid tahay waanigo kale weeyaan kala arag oo marka waxa u jeedaa dhaqamadooda kale leedahay sabaha maya sida maaha ee sideedo kale ay riya leedahay waxa ridaas wax weeyaan waxay ku hamidaa inay tagto buuraha badda inay dalxiis sameeyso ha sug imikaan fahmay sidaadoo kale tahay qof caajis oo goona sabaha oo laga yaabay caajiso mal dhaxade magaceed waxay ku tiri magacaygu waa Simraan oo waa si wanaagsan awadna maxaa u sheegtay markaa raaj baan u sheegtay raaj Samraan iyo raaj adoonka dhaweynagtayda wala waxa macquulba maaha miyad weedi magac wanaagsan oo iyada keeda ku dhowdhowo fajac galiyo oo kale arag ku soo baxade oo ma weydiisay aabaheed inuu markaa ciyaarta golofta ama inay cod magaasan oo ka jirubgeeyo kala leedahay meelaha xafladaha kala ka heesto wariya Ibrahim maxaa kugu dhacay qalqaali waad noqotay sida maaha inaad been u sheegtay inta looma baahna anigu been ma sheegin iyadoo sidoo kale waarinta dadka maalin iyo habeen waa la isticmaalaa inta waa la wadaa hawlaha ka socda habla iyana ma isbaranaya wax ka fududna ma jiraan inta kadibna waxa wala iska ilaawa caadi iska dhigo maskaxdaada ka fikir sheekhaygii alla niyo wax muhiim ah laaway hadda waxa rabaa aniga dartay maanteeda wax u sameeyso waayo wax la badsanahay mid macabisha ah waan baad balanta maya aniga bedelkeyga xagga tagaadigo bal way wad maatan saaxiib waxa waan isku leenahay sug breen igu ducee saxbiina inta hadda online tahay insha Allah ma ka tagto wariya Ibrahim بريا halkan aqbal xageed u baxdayna raaj wuxuu igu yiri waxaan ka wada inankan internetka ka bartay waxaan ku geynayaa meelo fara badan oo aanad hore u tagin waan sii sawiranayaa badalxiiskaas sida u macaan yahay sug briyaay malaad waalatee ii sheeg maxaad ninkan waqti kasta uga fakiraysaa yaa laakiin waxaan rajaynayaa amiiradeydii inaanad jeclaaninda ninka runtii ma garanayo inaan jeclahay in kale aniga kuu sheegay sababta
mana sheegay inuu jacaylku hayay in kale baryaay hooyo shahan cabbe wax shaaha miyaan kuu shubaa shaaha ma cabaa aniguna cabaa xilligan cuntada iska yaraynayo ayaan qac iska yaraynaya ah oo maxaa iskaga yaraynaysaa idhegeysi wax muhiiman kuu sheegaya sheekhagiyo mararka qaar waxaan isnidhaahnaa dadka xaqiiqadooda indhihiina ayaad ku arki kartaan dusha laakiin mararka qaar waynu qaldannaa markaynu ka fikirno qalbigeenna ee aynu ilowno qiimaha ay leeday kasta dee lacagtu dhegeyso bareemow adduunkana aad u adag tahay inay kulmaan laba qof oo isku aragtiya markaa labadeenu asaad u aragtaa haddaynu kulanno waynu wada ganacsan suuga hadalkayga waxaan ka fahmay inaad rabto inaad ilaaluushto maya hadiyada weeyaan adigana kugu talagalay maya idhegeysi waxaan ku leeyahay anugu ma qaata laaluushka 100% ka war haddaan kuu kordhiyo adiga hadday 15 kaa tahay way dhici kartaa inaan ogolaado waan ku baraya caqligaaga ku fikir amiiradeedii qaaliga ahayde baryaha lacagtu waa waxa aasaaska u ah nolosha dhan ee lagu tiirsan yahay laakiin jacaylku waa ka awoodaan waxaa sharaw isagu ka adkaado waa haddii uu markaasi uu jiro jacayl dhaba anigu waan ogahay ilaa markii aad dhalatay inaad marnaba adigu aanad farxad helin taasina waxaa sababtay waa qasrigaad ku nooshay laakiin da'dan aad joogto waa inaad sidaad rabto aad adigu yeeshaa laakiin waa maya keligaa ma aha laakiin xaqiiqadu waxay tahay waa inaad heshaa saaxiib qurux badan oo firfircoon isagu oo ku jecel weliba si dhaba marka taa macneed ma waxay tahay adiga jacaylku ku soo maray haa baryaaye aniga jecel wuu soo maray hal mar in ka badan weliba markaa sideen ku ogaan karaa jacaylkani inuu dhab yahay iyo in kale anigu mid baan jeclahay hadda marka habeenka oo kale aad hurdada seexan kari weydo sidoo kale markaad qofka wakhtigaaga oo dhan aad sugto adigu ee aad rajayso inaad wakhti kasta aragto ee qalbigaaga uu dhaqdhaqaaq galo ee aad dareento inaad dadka oo dhan iska celin karto ool dadka oo dhan ee aad naftaada ku tiraado ma aqaan waxay ku dhacay toloma jacayl bay ahaya waxyaabahaas oo kale waa sidan filiya mira baryaaye ahaa taasi waxay ka dhigan tahay marka adiga jacayl baa ku gala soomaa ku haya waana hubaal qofku hor istaagi kara ma jiro soo saa maaha inantaydii wax hor istaagi kara ma jiro jacaylkaaga adiga boqoradan hor istaagi karin iyo weliba 40 gidaar ee qasriga soo saa maaha alla waxaa leeda kii lee qorayow iska waran xayatul xaggaad marta adigo waan ka xumahay saan u joogay baan iska gamay sirta hoosteeda soo maaha exactly ha xali saasan u seexday miyaad og tahay sababta anigu xayo dhan kombiyuutarkan dul fadhiyay waxaan rajeynaya inaad hal maroo keliya aad online ii soo noqoto adiga waan ku sugay laakiin online maad soo noqon adigu yaa runtii anigu waxaan doonaya inaan wax ku weydiiyo adiga wacanay sorry magacaygaadi weydiin lahayd miya laakiin waan ka xumahay kuuma sheegayo magacayga waa markii labaad nolosheeda aan la kulmo inay yaro wanaagsan sidaadoo kale adiga oo aad u qaaliya runtii ma sidaasaa waayo marka hore ii sheeg taas hore ii ahayd mawduuc hore ayay ahayd ilaa wakhtigan waa xasuustaa ilaa haddana mar qura maskaxdeeda kama baxdo oo niyaddan ku hayaa maskaxdeeduna way qaadatay amba kula mid baan ahay sanad ka hore ayay ahayd markii uu qof noloshayda soo galay sida dabeesha oo kale kadibna uu sida dabeesha iga baxay mana garanayo meeluu ku dambeeyey oo magacii adigu marka hore ii sheeg sanadkaans aragnay sanadkiisii hal maalin ayaa ka hadhay markii ugu horreysana waxaan ku arkay taalada cas taalada casaa okay balaan fahmo inta kale aanan qora sug haddii adigu inanta aad ku arkay taalada cas aad saamaxayso intaa kabacdi way kuu soo celinaysaa kabahaagii shaagagala xabaddii ay kaa qaadatay ka waran maxaa tirina sidee ku dhici kartaa iyadu ii sheeg bal maya marka hore ballan ii qaad okay marka hore ballanta ii qaad markaasaan kuu sheegay waa hubaal ballan baan kaaga qaaday runtaan kuu sheegayaa
maalintii aniga ayay haytay ka qaadatay kabta shaagale ma adiga qofkaasi hayd aqli gal ma aha runtii jacaylku saamiya waar sug maxaad ila jaasay horta marka hore waa ninkayga waa laga yaabay anigaa toorana nin iga khatarsanna maba jira adduunkan ninkiina de waan soo dhameeyey hawshiisii waan qanciyo waan wareejiya waa hubaal maanta xaflad weyn baa samaysananaa runtii maxaad samaysay run ahaanti waxay noqon doontaa xaflad in badan la xasuusto oo la xuso waayo waxaa loo kulmay inantii taalada cas sug ma inantii aad ii sheegaysay lafteediba yaa waa lafteedii soo maaha ha bremo ma rumaysan kartaa iidaanta laftirkeeda imika internetka la hadlaya qadarkaygii way noqotay saaxiibkay bremow runtii ma rumaysan karaa anigu waan faraxsanahay omaaleba markaa okay saaxiib imika haddaba waan sii soconaya waan kaa tegayaa inanta si fiican ugu sheekee inaga cabee dee halkiina xasuusnow saaxiib ugu dambaynta faraxsanow okay waa si wanaagsan arjun waxaa ilaaway aabbaha lama dhaweyd ku yeedhiyo kaa weydiinayay oo muxuu iga doonaya talow wuxuu igu yidhi qol ula ballansayoo xoogaa ballan baa jirta dee markaa miyaa u tegaysaa dee aabbaha mise waa iska daynaysa adeer yaa imikuu xitaa muxaadaradiisi aan dhammaananay bilaabaya aabbahay ya ilaahi balan hubiya dee inanta yar inay sidii ku sheegaya tahay inay tahay dee xabad waalan yaa halo xaggaad qabatay lagu waayay sikadiisa meelna maan aadin laakiin xoogaa arrin yar baan ka fikirayay arrinkaasoo ah ma awoodaan anigu inaan idinku nimaado gurigiina adigu xaafidaheed gashaa adigu waad maqasho samaha qasriga moogti haa waan maqlay 18 sanaan jiraba kaasaan ku dhex jira maxaad ka qabataa muhiim maaha inaad ogaato adigu majaariyad baad ka tahay mise ciyaalka qasrigaad ciyaarsiisaa waxaan uga jeedaa oo keliya waad ka shaqaysaa qasriga taasi shaqadaada maaha maxaad u rabtaa inaad ogaato haddaan doono amiiradii qasrigaan haybe boqorada aqligeli maaha mayaala haddii fil lagu dhibo waa matiri karaysaa anigu hablaha kale lama mid yahay oo sidee waayo hadday kaa dhab tahay ood amiiro tahay kabtaydii shaaga lahayd ee aad iga qaadatay ii keen beritoyle galab aniguna waan ku sugayaa oo waan ku imanayaa farxadna way noqonaysaa waxaana kugu sugayaa taaladii casayd ha iga soo raagin annaan ku siinaya abaalmarintaade tan waaba la yaab mar waxaan iswaranaya waa qof caqli leh sida caqligala u hadlaya marna sidii dadka waalwaalan waa sidee war naga tag kula hadlima mayne hadday sidii sheegaysa amiirad qasri ay noqoto markaa mudan brimow noloshaadoo dhan way isbedelaysaa maxaan sameeyaa talow yaa maxaan sameeyaa waaba tacab talow baaswordka ma bedelaa wax fiican baan sameeyey haddaan baaswordka bedelo hadda baaswordka waan bedelay kii aan rabayna waan ka dhigtay baaswordka cusubna waxa weeye waxaad rabtaa inaad bedesho haa waxaan rabaa inaan bedelo brimow noloshaadu isbedelaysaa wax wanaagsan baa soo galay keliya waxay u baahantahy inaad dhowr tallaabo oo keliya qaado qunyar ha degdeyin berri bay noloshaadu isku bedeli doontaa taalada cas dhalasho wanaagsan beriya happy birthday to you happy birthday to you dhalasho wanaagsan beriya dhalasho wanaagsan beriya dhalasho wanaagsan beriya ilahaas idinkuna ila dhaa dhalasho wanaagsan beriya dhalasho wanaagsan beriya soomiye shukran inantaydii qaaliga ahayd ilaahay intaad nooshahay ayaa ma wanaagsan oo farxad leh kugu nooleeyo oo sharka iyo dhibaatada iyo wixii colaad ku haya baa kaa fogeeya haddaad intaasoo dhan ii ducayso oo hal mar adii wada ducayso ilaahay waxaasu ducaa kaama wada aqbalaya dawoog sidee ma inantayde ducaad si kasta u badantay waa la aqbalaa
xafladda maantana amiirkaad ku riyoon jirtay baad ka dhexelaysaa yaa ku jira idin soo waalanaya waxa wuxuu qorayaa nin daro wala haaba sikadiisa ku noqday milyaneer aqliga ma gashanayo alla ilaahayo qof kasta noloshiisa uu bedeli karaa saacad dhammaan ku celinaya waxaan u leeyahay passwordkan waa khalad maxaa sameeyo kaase yaa maanta waa dhalashadii Bremen waxaan rabay inaan ku dhaha dhalasho wanaagsan laakiin passwordkii baa sabab caqabad igu noqdo gel macquul maaha adiga nasiibkaagu aad buu xun yahay waa isha suu passwordkiisa isku bedelaya ma laga yaabaa inaad ugu bedeshay ما بدلن بريمو صاحب بس ويلك انا له با صاحبان كبري عاوي او خلي سميه ان كل هذا بلي ربايه ها وعقل قل ومعقول صدح يطبع عفر يطبع شن يطبع لح يطبع تضبي يطبع وريا ماذا هدي دي سديد يطبع الحاجات قيسي وتابعنا وحقاري ها وانا رخي ما هساني قوات سكتي كرت subax wanaagsan aabo subax wanaagsan inantaydii ii kaale dhalasho wanaagsan inantaydii sanad wacan wanaag maxaa kaa sii aabo waan ogay waa dhalashadaydii laakiin aad baad u faraxsantay ii sheeg sababta haa aabo aad baan u faraxsanahay dee mar haddii aabahana ilmihiisu weynaado waa inuu aad u farxa mar haddaad maanta 18 jirsatay waa guulaan gaadhay dee waad qaan gaadhee aabo maxaa taa igu dhagtay waxaad ba moodaa inaad nin guursato adigaba tegaysa yaa sidaa ha odhan aabo anigu weligii ma guursanayo habluhu markay nolosha wax ka bartaan kabacdi ayay guursadaan anigu 18 sanaan jira ilaa haddana waxba adduunkan kamaan arkin aabo sidaa ha odhan maalin baa iman doonta riyadaadu ay rumoomi doonto yaa waan ogahay taa aabo waanan hubaa inaan rumayso maalintaasi maalin dhow ayay noqonaysaa haddaba aabo waxaasoo dhan naga dhaaf oo waxaad ii sheegtaa hadda maxay yihiin waxan oo dhan maaniga iskale waa ku sidaa amiiradeydii haylaawin maanta inay dhalashadaadii tahay waxaan hadiyadaadaad ugu leedahay ma waxan oo dhan waa 18 hadiyadood oo kala gaaro mid walbaba sanad gooniya iyo wax gaari ku jira adiga iskale inantaydii maana iskale dii idinku weydiiso muxuu aabbaha hadiyad kuugu keenay dee hadiyadan ii keenay ku tan weeye laakiin tani maaha tii asaasiga ahayd hadda maxay tahay hadiyadayda asaasiga ahi yaa ii yeri sug hadda halkan soo agaabo adiga ayaa iskale jaakada oo kaasina muxuu yahay ii yeri sug hadda shandadanna adiga ayaa iskale waaw jaakad jiinisa iyo weliba shandad waa hubaalaaba waad ku riyoon jirta jaakadan jeemiska waana waxay iman doontaa mar aad ugu baahan tahay jaakadan iyada ah aabo waa runtaa waan u baahanayaa markaan qasriga ka carro waayo maanta qasriga waan ka baxsanaya waxaan la kulmayaa amiirkayga aan ku riyoon jiray anigoo jaakadan xiran sidoo kalena shandadasta waxaanan u celinayaa kabtiisii shaagaga lahayd wallaahi aabo run baad sheegtay waan u baahanayaa ballan baan kuu qaadayaa aabo waan xidhanayaa maalinta ugu dhow weliba iga aqbaltan adigoo raalliya wadaag waxay sayoonkay waa hadiyad yar kolay kuuma qalanta adiga aan walganba waan idiin iman jiray oo waan idiin ducayn jiray markaad iga dalbateen dhalashadeenan tana inaan kasoo qayb galo waan imi marka lacagtani waxaan docayga dutee waan ogahay inaad lacag u baahnayn laakiin tani aniga dhaqankayga iyo caadadayda tahay mar haddii qofku qasriga noogu yimaado uuna soo booqdo ma jecli asagoo faramaran inuu bannaanka u baxo ama u tago si fiican u fakarsan oo kale tanana waa ku siinaya xisaabtaada dib ugu noq maan fahmine maxaad u jeedaa qasrigani dabiici maaha waxna way kugu soo socdaan caqligal miyay tahay xataa waxay noqonaysaa maanta maalin ay dadka ku imanaya xataa ay mushkulad ku noqoto sidaa darteed marka xafladhan samayn maantana waa adiga un xaflad samayn oo hadalkayga qaatay sumcadaada iyo sharaftaadana imika waa khayr haddaad maanta xafladda aad dhigto wax kastood haysataa waa kharimaya anigu wax walba waan u samaynayaa sidaan sharafta reerkan u ilaaliyo wax dhacayaana ma jiraan orod hawshaada qabso
naaniyey marwo idhegayso maanta ma ogoli inay shaqaalahaasi wax qalada ay galaan waan idinka digay imikaba taasnaadee mas-uuliyad kaa saaranta waayahay laakiin boqoradii goorma ayay amiiradu soo degaysaa iyada ii sheeg bal waa goorma waqtiga ay goynaysa keegown baryaayay maxaad egeegaysaa waxaan egeegayaa waddo balaan ka bixi kara anigu miyaad ilowdin in lagu yiri ma soo bixi karta ilaa keega jaraysa mooye anigu ma oofinaya waxay boqorada tidhi oo markaa anigu maanta xafladan waa xafladeeda waana maalintii dhalashadeyda waxaan doonayaan samaynayaa